oo ku yiri bishii waanu aragnay shalay galab nabiguna asxaabta uu sida ku afuriyay saadaradeed baynu xalay saqdhaxay waxaynu ku dhawaaqnay inay ciid tahay waxaan doonayaa markaa dadkii ciidka aan ku ciidsiinay inaan warbixin yar oo kooban siiyo anigu galabta markay qoraxdu sii dhacsay baan magaalada Taleex ka baxay waxaana tagay buurta ugu dheer deegaanka kan magaalada ku hareeraysan waliba ogadeeda ama fiiqa u sareeya halkaas aan salaadii maghrib ku tukaday waxaana igu kalifay inaan halka ku tukado iyadoo mar walba ciidkii weynu tukano waa ku qanacsaneen laakiin mar walba shaki ama ladh baa jiray soo kacayay oo bisha laga qabay waxaan cadeynayaa bishii maalintaynu ciidnay intii khaasatan dadkii reer Taleex ee ku ciiday hadalkayga iyo takbiirtayda ama ku ciiday cismaan baa ciidkii cilaamiyay oo u badan dadka waayeelka aan la socon warbaahinta inaan u sheego oo u cadeeyo waxaan idin ku ciidsiinay wixii Soomaaliya laga sheegay oo Soomaaliya ay ku ciiday waxaana cadaatay inaysan bishii shalay galab dhalan bishii shalay galab ma dhalan anigu galabta dhambuurtaas aan u saaraa waxaan ka soo degay anigu aan aragtii galabta dhalan lahayd tii soo dambuuxada ahayd oo galabta dhalan lahayd anigaan indhahayga saarin baan hadda ka soo degay waxaan cadeynayaa xaqa ayaa mudan in la dhaho ilaahay baa mudan in laga boqo aakhiro ayaa adduunka ka daran dadkii aniga aragtidayda iyo takbiirtayda ku ciiday oo ictimaaday waxaan doonayaa inaan u sheego maalintaan idin ciisiyay maalin Ramadaan ay ahayd sidaa inaa ku qanacdaan maalintaasna idinka xilidin la jira hadii aan anigu idin sheegay oo waxa weeye saad yeeli lahaydeen marka maanta waxay ahayd 30 buuxadii Ramadaan bay ahayd maalintaana waa inagu leeyahay ciidkuna muslimiinta waa berito intaasaan doonayaa inaan idin sheego oo idin gaarsiiyo waxaan idin ku ciidsiiyay wixii la arkay oo Soomaaliya oo dhan ay ku ciiday xaalkeen waxa urjifooyadii ku gowracan oo Soomaaliya oo dhan baa cilaamisay muslim Allah xaq sheeg run sheeg muslim Allahna uga qaado taasaan anigu idin ku ciidsiiyay sida khilaafkeedana galabta muuqata waxaan idin sheegayaa maalintaas sida yeelahaydin iyo qalaheedii baa idin ka doonayaa maantana ciid ma ahayn wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh